nabadgelyo. aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. sharafi korkiina ha ahaato. waa anigoo sida cali macalin ibraahim. waa barnaamij ii gaar ah. badankiin waxaynu ka cabanaa in maalmahaynu ay yihiin kuwa aad u cajisan. miyay jirtaa waxyaabo loogu hortagi karo arrintaasi? haa, way jirtaa. maalmahaaga 5 arrimood ee hooyooyinkooda haddaad samayso, insha araxmaan maalmahaagu waxay kugu macaanaan doonaan sida malabka oo kale. waa maxay shayadaasi? intaynu 5 arrimood aynu u gelin, aynu sheegno 2 shay oo ah hooyooyinka dhammaan shayadaasi. shayga koowaad waa inaad samaysaa timetable. dadka khubaradu waxay dhahaan isbuuc ama 2 isbuuc qofkii samaysta timetable sax ah, noloshiisu dhammaan maalmaha kale way ka quruxnaan doonaan. isku day marka inaad samaysato waqti kuu gooni ah oo aad adigu maamulkiisa gacanta ku haysto. xilligaas baan hawshaas qaban, xilligaas baan hawshaas dhammayn, xilligaas baan meeshaas tegi, sidaas ku qaabayso howlahaaga oo dhan. waa arrinta koowaad oo ah hooyooyinka. arrinta labaad, waxaad ku dadaashaa inaad dhammaan salaadahaaga aad masaajidka geyso. haddaad tahay qof rag ah, haddaad tahay dumarna waqtigooda ku duko oo kaliya. dembiyadana iska dhowr. dembiyada iska dhowr maalmahan. isku day inaad dhammaan waxaad samayn jirto dhan aad bedesho. sheegadan soo socdana la samey. shayga koowaad, subaxii arooriya soo kac. xilli hore soo kac subaxii. xilli salaada subax la aadi doono oo kale xilliyadaasi soo kac. xilliyadaasi sirar badan ayaa ku duugan. waa xilliyada rabbiga weyn uu aqbalo dhammaan ducooyinka la weydiisto. hadday ka weyiin xataa buuraha, badda iyo bariga oo kale, dhammaan ducadaada waa la aqbali doonaa si shaki la-aan ah. isku day inaad xilligaasi soo toosto. xilliyadaasi waxaa soo jeeda oo keliya dadka ilaahay u go-ay. adiguna ka mid noqo dadka alla u go-ay. shayga labaad ee ku xusan, aqri xitaa in yar oo ka mid ah qur-aanka kariimka. xilliga aad soo kacdo ama salaada subax aad oogto, isku day inaad akhriso xitaa in yar oo ka mid ah qur-aanka kariimka. haddaad xifdisan tahay waa maasha allah, oo akhri jalaad ama dadka waaweyn siday akhriyaan oo kale. jalaadkaaga ka tuur maalin walba jalaadkiisa 7 jalaad, ama ha ku ahaatabo juskaaga intay tabartaada la eg tahay. isku day inaad wax ka mid ah qur-aanka aad akhriso. maalintaadu aad bay u qurux badnaan doontaa. shayga saddexaad waxa uu leeyahay waqtiga aad samaysay shayadiisu ha ka dib dhicin. waqti baad samaysatay soo ma ahayn? timetable baynu leenahay haddaan. waqti walba waxaynu u samaynay aynu sameyno. wahsiga aynu joojina yacni. shaygaas baa hadda khabar rabaa, waan ka boodi. shay kalaan samayni. qofaa ii yimid, waxaan maskaxdeeda ka maamulay waan bedeli. qofka aan bedel badan ha naqan. timetable baad samaysatay, go-aankaaga ku adkaa. nolol qurux badan baad rajaynaysaa. waqti qurux badan baad qaadatay adigu. noloshaada qurux badnay. oo waqti walba sidaad u samaysato u samey. shay walba sidiisa u samey. shayga afraad waxa uu leeyahay akhri wax ka mid ah qoraalada dadka waaweyn ama buwaagta. buwaagtu aad bay u badan yihiin. waxaa jira buwaag maalayacni ah iyo buwaag wax laga faa'iidaysto. isku day inaad akhrisa xitaa buwaagta wax laga faa'iidaysto xitaa 1 page ha ahaado. kordhi uun aqoontaada. iskuul haddaad dhigato waa maasha allah, oo iskuuladu aqoonta waxaa la yiraahdaaba waa in wax cusub la bartaa. shay cusub inaad barato isku day, oo wax badan aad raadiso. research samey haddaad qof waayo arag aad tahay oo research ku fiican. haddaadan ahayn oo kale dadka meelaha research waaweyn gaarayna, isku day buwaagta yaryar maskaxda lagu dhiso, kobci maskaxdaada iyo inaad wax uun ka akhriso subax walba. shayga shanaad waxa uu leeyahay haddaad samayn jirtay in badan ama haddaad ahayd in badan mid hadalkiisu uu badan yahay, haddaad ahayd mid sheekadiisu ay badan tahay, haddaad ahayd mid dadka ku dhegdhega oo qof walba maalin walba laga soo cawdo oo kale, ama aamusnaantuba ay kugu yareed aad dhihi jirtay mar uun aan aamuso, hadalkaaga adigaba aad ka rahsatay, isku day in aad aamusto. sababtoo ah nin caalim ah oo culimadii hore ka mid ah wuxuu yiri weligay kama aanan shalaynin maxaad u hadli weyday, balse waxaan ka shalayay maxaad u hadashay. marka isku day inaad aamusto. ka bedel qaacidadii hore. haddaad war badnayd jooji warka. haddaad hadal yaraydna aad u sii hadalkaaga aad u yaray. sababtoo ah qof hadal badan ma noqon karo qof xigmad badan.
qof hadalkiisu isdabajoog u yahay ma noqon karo. qof walba haddana ku dhacday dad gaar baa jira oo waalidiintooda iyo dadkooda markay ku dhex jiraan iska maasha allah oo iska furfuran. furfurnaanta laguma diidayo, laakiin inaad noqoto qof maalayahan isaga hadla maanta oo dhan waa laga wanaagsan yahay. isku day marka aamusnaantaadu inay heersan noqoto. insha araxmaan waxaan rajaynayaa dhammaan sheeyadan iyo hooyooyinkooda haddaad samayso maalintaadu aad inay u qurux badnaan doonto. maalmahaaga waad macaansan doontaa insha araxmaan. isku day inay maalmahaaga ku qurux badnaadaan. ducada allana ku kaalmee shay walba aad samaynayso. alle u tala saaro, qaadirka weyn u tala saaro oo garabkayga soo galle rabbiyo adigaan ku cuskanaya, awoodeeda adiga ah. ilaahay meel uu ka maqan yahne waxba kuuma jiraan ee ilaahay kaalmayso. ilaahay wax walba weydiiso, qofna waxa weydiisan isku kalsoono. insha araxmaan maalmahaagu aad bay kugu qurux badnaan doonaan. maalmo la mahdiyo adduun iyo aakhira aad mahdiysana way noqon doontaan. aad baan idin salaamayaa. sharafi korkiina ahaato.